kumanaan ka tirsan shacbiga muslimiinta ee ku dhaqan magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Cerigabo ayaa saaka aroornimadii hore isaga kala yimi dhammaan xaafadaha waaweyn ee koobsato magaalada iyo tuulooyinka ku gadaaman si ay u tukadaan labada ragcadood ee salaada Ciid al-Fitriga waxaana dadkii ay buux dhaafiyeen fagaaraha garoonka kubadda cagta ee Stadium Dalo iyadoo ay salaada kala qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda heer gobol iyo heer degmo culimaa u diin iyo shacabka ku dhaqan magaalada waxaana markii ay salaadaasi gabagabowday hadal dheer halkaasi ka soo jeediyay Sheekh Maxamed Cali Biixi oo kamid ah culimaa u diinka waaweyn ee ku dhaqan magaalada Cerigabo waxaana uu ka warramay fadliga ay leedahay bisha barakaysan ee Ramadaan waxaana uu sidoo kale uu xusay in xukuumadda cusub ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay shacbiga reer Soomaaliland ku xukunto shariicada Islaamka isla markaana ay dadka u sameeyso cadaalad dawladda daalimada ahina ma waarto walaal muslimad ba ahaatee waa qaacido jirta weey waxaan leenahay taariikhda ummadda Soomaalida haddii dib loo raaco waxa soo baabiiyay waa cadaalad darro wax u joobay xidha حبت كل دفتا وتحسها سوماليشة وسويشة وحلينا يقولون عصب إلهي ومدة أنت كجبر لا شرعي كذا كل رقة عدالتنا وجاذا واحد جوابه يحرق يحبت كل دفتا يقف واحد الله واحد لقوها يستعمل قرنا إنه لسكها هنا يولي قاعد يابد سنوات الله يسكي لالي waxaa sidoo kale isaguna munaasabadaasi ka hadlay duqa degmada Cerigabo Mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo hambaliyay guud ahaanba shacbiga muslimiinta meel kasta jooga iyo shacbiga reer Soomaaliland waxaana uu Ilaahay uga baryay inuu sanadkiisa ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash waxaa isaguna munaasabada soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre oo u hambaliyay guud ahaanba shacbiga reer Soomaaliland gaar ahaan shacabka reer gobolka Sanaag waxaana uu ku dheeraaday dhinacyada nabadgelyada iyo sidii loo ilaalin lahaa ammaanka waxaana uu sidoo kale uu ka codsaday guud ahaanba shacabka ku dhaqan gobolkan sidii loo daryeeli lahaa dadka tabaalaysan isla markaana carruurta goomaha loogu sameyn lahaa hoy markii ay gabagabowday munaasabadaasi ayaa dadweyne ay u soo dareereen dhinaca iyo magaalada isla markaana aad ku arkaysay shaaracyada iyo wadooyinka waaweyn carruur aad u tiro badan oo buux dhaafiyay isla markaana ku xardhan qalabka carruurtu ku ciyaaraan haddaba inta ka bacdi ayaa telefishinka caalamiga ee Somali Channel uu la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan magaalada mikrofoonka waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan inay ku ciido si khayr leh iyo ma garanaysa barwaaqo maanta way ka muuqataa barwaaqada dalka ka jirta inay sida u ciidayso gobolka Sanaag insha Allah sidaas iska fiican baan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliland oo dhan farbadayeen gobolka ay isugu yimid gobolka Sanaag aad bay u farbadciidan ciid lamidana wali kuma arag waxaad moodaa wadanka barwaaqo horumar wax isbedel aad u weyn baa ka dhacay wadanka Allahi wa barakatuh waxaan soo gudbinayaa salaan kaliya laabad dhammaan dadka muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan hambalyeeyay dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan Soomaalida gaar ahaan reer Somaliland waxaan leeyahay ciidkan ciidkiisa خير يا برواقي بشمش الله ينو قارسين الحمد لله خير كل عام وانتم بخير عيد مبارك عيد مبارك مسلمين مالك استيجوغان با عيد مبارك بان لنا بدينا يا مسلمين مالك استيجوغان maanta u ciiday ciidka Ramadaan waxaan leeyahay Ilaahay naga aqbalo amalkeena oo soo marnay iyo kanayna maanta gudanayda salaam alaykum midowdeen oo la baxdeen Sanaag Media Group waxa jecelahay horta qoladiina wixii midoobaaba wax tasiimo bihablillah jamiican tibay qaateen waxa weeye taasaan idinka mahad celinaya oo idinku hambalyeynaya talabaad waxa weeye muslimiinta meel kasta oo ay joogaan iyo farxadda ay ku jiraan taa tulamida ayaanu meel walba ugu diraynaa waxaanu leenahay kullu caam wa antum bikhair يا عيد مبارك هذا سلام يا هويدا يا باي ayna u ciidna caadiga wala ciidida bashashay barwaaqay ku gaadhno wala يا هويدا يا باي kuleey ciid mubaarak wixii Soomaali muslimiin salaamaya walaalahayna waa salaam يا هويدا يا باي يا walaalahay مسلمين عيدك مسلمين تاماتooda ciideen waxaan ciidnay si fiican waa maalin wanaagsan waa maalin bishir barakaysnada Ramadaan Ilaahay khayrkeedana walaalayaal waxaan leeyahay dadka ciid wanaagsan ciid mubaarak wa barakaatu kullu caam wa antum bil khayr waxaan maanta halka ka salaamayaa dhammaan caalamul islaamka ee ku ciiday bashbashka ee ciidul fidriga galay waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr Ilaahay Ramadaantii bishii Soomaaliyeed aynu barakaysnayno aynu soo dhameysnay Ilaahay dambiga waalidkeen baa ku dhaafo ka salaamiyaa shacabka muslimiinta meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa daafaha caalamka waxaan si gaar ah halka kale uga salaamiyaa family-ga haday joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa
waxaan iyana oo kale halkaan ka salaamaya oo salaan bogaadin iyo salaan uga sii gudbinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo iyo qoyskiisa waxaan kaloo halka ka salaamayaa shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambal iyo ciid wanaagsan ciidkiisa insha Allah aan caafimaad iyo barwaaqo iyadoo ciidkan waa ciid aad iyo aad u weyn isla markaana shacabka ku dhaqan magaalada Ceerigaabo wajiyadooda ka dhahanaysid farxad aad iyo aad u ballaaran wararkaanu ka helayno degmooyinka gobolka u koobsada ayaa dhammaantoodba sheegaya in munaasabado caynkan oo kale ay ka qabsoomeen cabdinaasir Khalid Saciid Somali Channel TV Ceerigaabo